وأرمنا بتقليو يحسلوني وحي لولا هذا خلخل هي السياسة بسومال لاندي دنتها إما ما أقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أدنا قعد صوتهاي فضلا كسر دو كنالك حقت جيسكا كنالك حقت جيسكا waxaad ka heli doontaa warar iyo warbixino xaqiiqada ku saleysan kuwaasoo mar walba update oo aad helayso. Haddaba si aad ugu xidhnaato kanaalkan subscribe saar gambaleelka yarkaana furo si ay fiidiyoyadu marka ay soo baxaanba ay kuu soo gaadhaan. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Mudane Xiir Faratoon ayaa ka hadlay marsii horeysay fanaaniinta xidhan waa Barwaaqo Qalanjo iyo Xamdi Qaali. Waxa uu sheegay in ay ka yimaadeen Muqdisho isla markaana ay wadaan fikir qaldan kaas oo khalkhal gelinaya amniga Somaliland iyo magaalada Hargeysa. Haddaba wasiirka Wasaaradda Warfaafinta ayaa wax laga weydiiyay mar haddii ay ciyaaryahanada iyo fanaaniinta iyo siyaasiyiintu ay isku gudbi karaan heshiisaasna lagu galay shirkii Djibouti. Haddaba ma la soo deyn karaa fanaaniinta haatan xidhan ee ku xidhan jeelka weyn ee Hargeysa? Fanaaniinta Barwaaqo Qalanjo iyo Xamdi Qaali ayaa hore u aaday magaalada Muqdisho halkaas oo ay u doonteen show ay ku soo qabanayeen isla markaana uu ahaa show markaasi uu kula jiray fanaanka weyn ee Saalax Carab. Isla markii ay Hargeysa soo galeen saddexda fanaan ee Saalax Carab iyo waliba Xamdi Qaali iyo Barwaaqo Qalanjo ayaa saddexdoodaba la qaaday isla markaana la geeyay jeelka si loo xidho. Haddaba Saalax Carab ayaa sheegay in aanu ahayn Soomaali isla markaana aanu qabanayn sharciga Somaliland uga yaala cidda Muqdisho tagta ama fanaaniin ha ahaadaan ama siyaasiyiin ama dad bulshada dhexdeeda magac ku leh. Saasi daraadeed jahliyadda Yemen ee joogta Somaliland ayaa u dooday isla markaana waa la sii daayay, balse Barwaaqo Qalanjo iyo Xamdi Qaali sidii bay jeelka ugu jujuubayeen kamana aysan soo bixin ilaa iyo hadda. maxaa keenay xilligan in Somaliland ay aqbasho isdhexgalka bulshada sida ciyaaraha, fanaaniinta, abwaanada, waxbarashada iyadoo Hargeysa ay ku xidhan yihiin laba fanaan oo dhawaan Muqdisho tagay kuwaas oo loo haysto in ay Muqdisho ka soo heeseen? wasiirka arrimaha dibadda ayaan weydiiyay su'aashaasi. مرة ما أينا ديدين أما Somaliland ما ديدين سصعدك يستحقلك بالشدة وحلالك من ما أيدين. Somaliland واحد ديدي سصعد سياسة سنة وجودية السياسة يخرخر أموري والله وصل كلك. مركا سيدا الله شاعري هلكا وقري اللوب البلاري وحدقنا وأرمنا بتقليو يحسلوني وحي لولا هذا خلخل هي السياسة بسومال لاندي دنتها إما ما أقرأ.